oo nafta ma dhaafin lahayd haddii gabadhaada ay warkaa diido kuna keento nin cadaan ah haddaba waxaan rabaa wax yar oo ku saabsan qisada warbaahinta dalkan Holland qabsatay oo aadka loo hadalhayo in aan xoogaa idinkaga sheego gabar 18 jir oo lagu magacaabo Rayaan Al-Najr ayaa meydkeeda waxaa laga helay kanaal ku yaala magaalada Leylstad waa toddobaad ka hor arintan markii dib loo baaray waxaa la soo qabtay isla markiiba booliska ay gacanta ku soo dhigeen laba wiil oo iyada la dhalatay oo iyada ka waaweyn inta kiiskeeda gacanta ku jira oo magaalada dadkii deganaa iyo booliska ay ku mashquulsanaayeen dilka gabadhan isla markaana warbaahinta ay aad tooshka u saareysay waxaa durbadiiba soo baxay ishaaca ku saabsan in gabadha ay xiriir la lahayd wiil u dhashay dalkan Holland isla markaana ay aabaheed warka diiday isla markaana ay sidoo kale xijaabka tuuratay dhaqanka wadankana ay dhinaceeda ka raacatay haddaba booliska